mudaharaado ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmadheer ayaa isugu soo baxeen dhalinyaro aad u tiro badan oo gadadsan kuwaas oo suuqa bartamihiisa ku gubay taayiro waxaana dhalinyaradani ku dhawaaqay halku dhigyo ay kaga soo horjeedaan maamulka gobolka Daadmadheer halka mas'uuliyiinta dawladda hoose degmada Oodweyne ay u aaneeyeen inuu mudaharaadkan salka ku hayo badalaadii lagu sameeyay madaxa caafimaadka gobolka Daadmadheer taas ay dhalinyaradani gobolka Daadmadheer noo xaqiijiyeen ayna beeniyeen inaanay waxba ka jirin arrintaasi balse ay ka soo horjeedaan maamulka gobolka iyo madaxda booliiska gobolka Daadmadheer kuwaas ay dhalinyaradani sheegeen inay u adeegsadeen rasaas eriskiisa laakiin waxa dadka galifay kal lagu soo bedelay iyo kala bedelay labadii roodina way hayaan taanu kama xun waana saactu min numar wada soo dhaweyn laakiin waxaan ku raga yani markii uu bugaagtiisa iyo dokumentiyadiisa iyo wixii uu ka qaaday dhakhtarkii saaka ayaa laga handaraabay fastood buu soo baxay taliye qaybaadkii dhakhtarka dhiciisa rasaas bilaw waxa cad oo dadku ay arkayaan oo media aan soo tusi karnaa dukaamadii la dhex fadhiyay dumarka caanaad ku iibinayeen oo rasaasta ay marfish ku taal maanta waxaan leenahay haddii xabadna lagu daro annaguna xabadna bilaabayna saaka waxaan ahay ninkii ugu horeeyay ee dagaalka ugu bilaabo taliyaha saldhigu uu rasaasta ku rido taliyaha waxaana ilaahum baana laga bixiyay dawaanuna dil ninka dagaalka ku taageersanana bara saabku koow ku ka aha yimaayir ku xigeenka oo rabshad bilaabo aha waxaan ahaa mas'uul ka yimid furinta gambadha laakiin shicibkeenna iyo maatadeenna iyo dumarkeenna iyo hooyooyinkeenna inaan xabad ka dhex bilowno ma aha xabaddaa laga bilaabay maanta Oodweyne anigu goobjoog baan ka ahaa iyadoo xabaddu dhacayso ayaan anigu sidaa idhi aanili dadweynihii sidaa dadweynuhu waa iga joogsadeen waanad ku mahadsantihiin xabaddana xagga dambe igaga soo dhacaysay dhagaxuna xagga hore igaga soo dhacayay dadweynihii gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse oo soo gaaray goobtani uu mudaharaadku ka socday ayaa weydiiyay dhalinyaradii bartaasi ku mudaharaadaysay su'aalo la xiriira waxyaabaha ay ka cabanayaan una ballan qaaday inuu arrintaasi wax ka qaban doono haddii ay u sheegaan dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dhalinyaradani waxaana hadaladiisii ka mid ah laakiin waxaan soo galay iminkan ka soo galay tuulada xaaxi iyadoo magaaladu kacsan tahay taayiro badan lagu dhex kubay dhalinyaro badan gadoonsan tahay insha Allah alxamdulillah dhalinyarada oo ciidan u soo kaxaysan oo maayirkoodiiba ayay runtii kala dejiyay xaaladda magaalada u degan tahay iminka laakiin dhalinyarada cabanaysa waxay sheegeen in bara saabka gobolka Daadmadheer taliyaha qaybtu ay runtii rasaas ku fureen dad mujtamaca oo masaakiina haddii taasi jirto ay cadaato waxaan runtii ugu sheegay hay'adaha laamaha dawladda oo dhan in 24 saacadood wax qabad degdeg ah laga qabto shaqada ayada ah ee kicisay